وحبه يودينا أنا أسباق ما تشيدين بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقول باغ شعبي الصومالي لدو تشيدين واركيسان حكومتي aan ka tirsanahay kulmiye bariga hore kadeedneed markaan mucaarid ka ahayn sal عليك ka caban jirtay maxay ahayd caburinta saxaafadda ka caban jirtay ka caban jirtay maxay ahayd in loo diido gobolada ka caban jirtay ka caban jirtay in faragelinta golaha wakiilada lagu hayo ka caban jirtay intiiba xukuumadayadii kulmiye maanta way ku dhaqaaqday waxaynu maraynaa shacbiyow halkii maalintii riyaalena laga xilin jiray golaha waxaan leeyahay waxa kaliya idin bad qaba waa golaha shacbiyadii waa la joojiyay waarkaysaan xisbiga wacid waa ogeydeen gabileyba loo diiday haddana sheekh baa loogu yimid burcamati kartaan baa la yiri waa ogeydeentaa waa ogeydeen saxaafadda waxa lagu hayo ilaa maanta xeerkeedii 2002 aan ansixinay ilaa maanta in la doonayo in la tirtiro oo xeer cusub oo caburinaya saxaafadda oo jiritaankeena tirtiraya in la wadana waa ogtiin waxa kaliya harsan waxa golaha wakiilada baha goluhu markii hore rag aad iyo aad buu wada socday anaga majority ahayn rag iyaga maxay ahaydeen kulmiyana maahay anu kulmiyana ha ninkii ugu hawsha badnaa kulmiyana ha rag maanta dawladda ku jiraan ma bay ahayn kulmiye waan idin sheegay rag waxaan wadaa iminka kulmiye ma yahay waxaan idin sheegayaa xukuumadayadii taageerayaasheedii way ka tagtay wakiiladeedii way ka tagtay wasiir dadkeedii guud ah xisbigeedii way ka tagtay وما توقتين حزبي كلمية هي حكومة هالك الكلام يا وقتين قدوميه كلمية حزبي كلمية ما أنت وافديت ترى الله لي ترى لو يديا ما شفته هذا قولي كلمية وحنا لقبا ما كمان بحرانه ولا دي شيء وحنا لقبا إما كهوسا بيا كورة تنين بحكوا شراء والله بالله يطلع هو بحين تالك اللي وحوي موسى كتم بيا إذا لو حيل الذين قدوميها كتم بيا والتنمية واحد دي شيء أنا مركميدهم بنسوي شيء يا صاحبي حكومتنا waxay tiraahdaa daaraan u dhisnay laamiyaan u dhisnay waxa ogeydeen 8 boqolkii sanadood marka laga bilaabo 1940 ilaa 1980 wixii uu dhisanayay reer Burceel Hargeysa reer Berbera inaan halka kaga dhaqaaqno madaar bayna anfacaysa xukuumadan barnaamijkeedu waxa in dad la dhisaabay in umada la dhisaabay in dastuurka la habeeyaabay inay kala dambeeyaan timaadaabay inaynu u guurno nidaam dimuqraasiya wixii aynu eednay afweynayna ku tirtiray inaynu ka guurno oo nidaam casri ah oo caalamka la socda oo mustaqbalkiina idinku amrayda sida ay uga aragtaan baa wala bedelo barnaamijkaygu waa bedelay anigu waxaan maanta shacbiga u jeedinayaa shacbiyow halkii baynu maraynaa anagu golahan ciidankiisu iyo tiknikadiisu waa shacbiga haddii shacbigu la raaco golahaas waa guulaysanaya hadduu shacbigu aamuso oo qabyaalad kala noqdo ilmahayga iyo ka qoryaala yaala iyo ka saylac yaala iyo inanka yar ku dhashay boorame iyo inanka ku dhashay baran isku xuquuq weeye nina kulli salmaayo maxay sallallahu alayhi xilli ba saciid gudoon madaxweyne Siiraayo wuxuu oran jiray su'aal ba ku weydiinay madaxweyne Siiraayo wuxuu oran jiray shuruuc looma gudbin baarlamaankii wuxuu oran jiray fargelin baa lagu hayaa hantidii ummadda loo adeegsanayay maantana waxaad muuqataa in dhaqaale loo adeegsanayo arrinta maxaad ka leedahay وانت شيء هذا الكلام توقتوز كفر هو تاوي مدان لكن الشعب جو شيء هو حوي وانك حكومة الدنكو قبو المهاجي وسكت لك حكومة الدنكو قبو حتى مع الانتقال كفكرت وإنه كنت كسندود سوس على كفكري وإنه وبتكلوا بلا حبين غني وحلا يا هاي شعبك نتاجرة حدي دجال كسي كردنا سيدي الظاهر يا لو حنا نصبح أنا طبيعي هلا كعو هلا فريستو دكامة هلا حلو ساسا ليه